الشيخ سعيد محمد فارح oo kamid ah culimada waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa maanta khudbadii Jimcaha ee masjidka Cumar Cismaan waxa uu kaga hadlay arrin argagax iyo la yaab leh isla markaana mucjiso ku noqotay dadkii masaajidka ku cibaadeysanayay. Sheekha ayaa waxa uu soo saaray sigsaan ama sharabaado xag hoose ay kaga qoran tahay magaca Ilaahay isla markaana Hargeysa lagu dhiibinayo. Sheekha ayaa ganacsatada ka ganacsata sharabaadada noocan oo kale ah uga digay isla markaana ugu baaqay inay gubaan. Sidoo kale waxa uu sheekhu baaq cod dheer u diray wasaaradda ganacsiga iyo cid walba oo arrintan ay khusayso. Waa maalin dhaweyd inama walaalayay keeneen arrin mucjiso ay noqotay oo la yaabay. magaalada Hargeysa waxa lagu iibiyaa sharabaado dushana calaamada Adidaska ku leh hoostana ta'ala Allahu an dalik lafdul jalala subhanahu wa ta'ala ku leh sharabaad xabid baan soo qaaday waa ka halka calaamadu waxa weeyaan waa calaamadii Adidaska weeyaan markaad gudaha sidaa u furto ta'ala Allahu an dalik magaci Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka ku qoran Allah ba ku qoran Hargeysa lagu iibinaya suuqa downtown ka lagu iibinaya meel walba yaalaan sharabaadada waa kuwa magaci Ilaahay ba ku qoran waa ayaan darooyinka dheena haysta tujaarta ee ganacsatada waxa keenay waa laba midun inay og yihiin inaanay ogeyn haddii aanay ogeyn oo inagu u badinayno inaanay arrintaa war u haynin waa alxamdulillah weeyaan in imika la baabiyo oo inta hadhay la gubo ayaa waajib ku ah iyaga intii wasaaradda arrintaa xiriir la leh ama ay khusayso oo wasaaradda ganacsiga ugu horeyso deyn magaalada iyo wadankan islaamka ah ee la leeyahay arrinta ugu horeyso wadanka la leeyahay waa shariicada islaamka lagu maamulaya maamulka shariicada islaamka sharabaadadii adii magaci Ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahayna abuuray in la xisaabtamaya ee adduunkan oo dhan gacantiisa ay ku jiraan in sharabaadada dadku ay xidhnaadaan magaciisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku jiro waa musiibo weeyaan adii ogeeyna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka jazaayisiin doona ummadda in loo turo Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga cabsado ayaa muhiim ah. dhanka kale waxa Sheekh Saciid Maxamed Faarax oo uga tacsiyeeyay dhammaan dadka reer Soomaaliland ee danyarta ah ee uu khasaaruhu ka soo gaaray shidaalkii wasaqda ahaa ee baryahan dambe suuqyada shidaalka ee magaalada Hargeysa lagu iibinayay kuwaasi oo qaarkood aanay haysan haba yaraatee waxay kaga soo kabtaan dhibaatada shidaalkaasi u geystay. Sheekha ayaa intaasi sii raaciyay in ganacsatada kala duwan ee Soomaaliland ay ganacsigooda xalaaleystaan isla markaana ay ganacsigooda ugu turaan bulshada ay ka dhex ganacsanayaan. baabuur fara badan baa imka taagan petrol khaldan baa yimid petrolka laftirkiisa in la baaro oo aanu ma aaminsanin in cilkeeda ka reeyso petrol xune duruufo u baa keentay duruufta laftirkeeda in la cadeeyo ayaa muhiim ah intaas oo baabuur dad masaakiin ay leeyihiin ayaa maanta magaalada socon kareen oo wax allaali waxay ku hagaajiyaan aan haysanin talaftirkeeda waa dhibaato walaalayaal ummadu inay muddo dhibta maaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu kaga cabsano arrimahaas waa arrimo muhiim ah.